bal mudane xildhibaan soo dhawow waxaan rabay inaan ku weydiiyo ugu horeyn maalmahan waxaad ku sugan tahay deegaano ka tirsan koonfur galbeed xildhibaan hirshabeelle laga soo doortana waa tahay marka waxaad warbixin naga siisaa waxa aad ka qabanaysa deegaanka aad joogto. aad maasan tahay aniga hadda waxaan kala hadlayaa oo aan ku suganahay degmada Walanweyn gobolka Shabeellada Hoose anigu ku dari maayo koonfur galbeed waxaan ugu darayna waxay tahay sabab jira awgood waa sax waxaan nahay xildhibaan ka soo jeeda Hirshabeelle laakiin dadkiisa ay degan yihiin muxuu ahay dhammaan gobolada Soomaaliya koonfur galbeed anagu maadaama aniga mas'uuliyadda maanta ay saaran Hirshabeelle ay tahay laakiin waxaan mas'uulka aadana ka beelahan meel bay ay joogto beeshaasi koonfur galbeed xuquuqdii beesha way ku tumatay way diiday hadda dadkii muxuu ahay madaxdii ahay ama siyaasiyiinta ahay haddii qof walba iska jaabiyo anigu waxaan garaawsaday maadaama dadka degan afgooye qoryooley Walanweyn leega goobaan leh balad aamin muxuu ahay dhulkaasoo dhan degan matalaad aysan ku leeyahin koonfur galbeedna ay diiday dadkaas inay deegaan yihiin marka anigu waxaan shaki la gelin karin inaan anigu dadkayga aan mas-uul u ahay meel kasta oo ay jogaana aan tago Walanweyn waxaan u joogaa howlo shaqo oo ah weliba dadkaas in ay ayagu maamul gooni ay samaystaan oo ay muxuu ahay isku tashadaan howlahaasaan u joogaa Walanweyn. no afgooye balad aamin iyo tuulooyinka hoos yimaado dhan degmooyinkaasi ay degan yihiin haddana loo diiday xuquuqdii ay ku lahaayeen koonfur galbeed haba yaraatee wax muxuu ahaay aysan loo ogolaan oo weliba si cad ay ku dheheen reer koonfur galbeed odayaashoodii dhaqanka gaaljecel meeshaan ma degan oo weliba odayaashii matali lahay koonfur galbeed laga reebay annaga ogaaskayni oo iyadoo la leeyahay ogaasku deegaan ma ahan marka waxaan tusaynaa inaan deegaan nahay haddaan deegaan ahayn hadda koonfur galbeed ha timaado ciidamada jooga Walanweyn ha ka kaxayso oo ha ka kaxayso ciidamada muxuu ahay aan geyn doona afgooy oo aan geyn doona leeg oo aan geyn doona meel walba bacawsnayda lagu aruurinayo goobaan le oo hadda maanta dagaal kula jira koonfur galbeed ha timaado kareelaha u keenta ha ka rar. mudane xildhibaan su-aal dadku ay isweydiinayaan ayaa jirto inaan ku weydiiyana mudan gaaljecel iyo koonfur galbeed sidaad sheegtay deegaanay degaan tuulooyinay degaan koonfur galbeed kamaysan bilaaban madaxweyne cabdicasiis lafta gareen koonfur galbeedii hore ee ka horreysay isaga miyaad ku lahaydeen matalaad haddii aad sheegteen in hadda laydiin diido matalaad? annagu markii hore wax matalaad ah oo dadkaasi u qalmo kumaanan lahayn madaxweynihii cusbaay markuu yimid aad baan isbedel u rajaynaynay laakiin muxuu ahay arrintii weli waa jubdul meeshaada joog waxaan tushaynaa waxayna dhaheen deegaan ma tihin laakiin inaan deegaannaha tushaynaa annagu cidna ku xadgudbayna deegaanka annaga aan degannahay maamul aan samaysanaynaa annagaa canshuurta iska qaadayna annagaana cunayno laakiin meel kasta oo muxuu ahay kamid ah Shabeellada Hoose muxuu ahay waa tegi doonaa Walanweyn kaliya ma ku ogaan doono abaabul muxuu ahay ciidan baan wadaa ciidanka markaad leedahay abaabul ciidanaan wadnaa ma waxaad ula jeedaa haddii koonfur galbeed ayna aqoonsan weyday deegaanada aan inagu joogno innagaa ka talinayna haddii ay noo yimaadaanna maxay tahay warka aad waddo? warkaan wada waa kaas annagu maadaama koonfur galbeed xuquuqdii aan ku lahayn koonfur galbeed ay ku tumatay ay diiday annagu deegaanadayna annagaa shabaab ka saarayno annagaa iska xuraynayno annagaa dhaqaalaha ka qaadanayno annagaa ismaamulayno dadka sida Walanweyn oo kale annagu kalagayna ma degan dad baa nala degan dadka diris wanaag baan kula noolaan doonaa afgooy oo kale waxaan geyn doonaa ciidamo waxaan kula noolaan doonaa diris wanaag meel kasta oo annagu noo gaar ah iyo meel kasta oo nala degan yahay cid aan ku dhibaatayn doona ma jirto annagu laakiin waa ismaamulaynaa dhaqaalaha annagaa qaadanayno maamulka annagaa magacaabanayno wax koonfur galbeed ka socdo oo aan aqoonsanayno ilaa ay naga aqoonsadaan haba yaraatee ma jirto. no look at the top of his head. in badan aan ku soo celisay inaad tahay nin nabadoona oo mas'uul ah oo dadka Soomaaliyeed u simeeyeen oo aan dagaal ooga ahayn oo nin qabiil aan ahayn hadda inta tahay oo intaaba ku midaysan yihiin mudan xilwan maxaad Walanweyn u tagtay oo aadna u tagin magaalooyinka kale shir uga la yeelan wax xallin dhibaatooyinka jira oo Walanweyn ku doorato aan deegaan laga soo doorto ahayn?
xildhibaan hirshabeelle oo meeshaas aan u tagay dad aniga ehel ahaan halkaas joogay oo ciidamo ahay ka amar qaata maamulka gobolka shabeellada hoose oo isku dhacsanay xalintoodii aan u tagay aan kusoo guuleystay xalinto oo aysan foodo samayn halkii gudoomiyaha gobolka uu ka ogaayna ay joogaan aysan ka dhaqaaqin arrinkaas aan u tagay aniga walweyn oo igu codsaday banduulka waana kusoo guuleystay inaan xaliyo oo idinka amar qaataan gudoomiyihii gobolka meeshaas keenay. xildhibaan aadan cabdi faarax kala dire oo xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ka tirsan ayuu kaasi ah saaxiibayaal oo ka hadlayay booliiska soomaaliya oo maanta su-aalo ku weydiiyey No, 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 no. Look at the top of his head.